dhaawaca la qabtay 2 sano iyo 8 bilood baan xidhnaa iyaga oo markaa Salaaxudiinka iyo shabaab ku haray Haaskaanbooni iyo Caanoolaa waxay ku heshiiyeen inay Kismaayo intay qabtaan ay ku xukuntamaan oo muddo waxay heshiis bay ku galeen heshiiskay galeen 6 bilood oo ay joogeen aniga bil walba shabaabku lacag bay soo diri jireen anaa dhisay oo ku xidhan heerkayga la siinay markii xildhibaan baa la igu soo daayay maana gelin waan ka soo tagay xuduudka markaan dhoobley ka soo gudbay nin baa la igu soo dhiibay Cabdiqani ka wajacay lacag $10,000 Ibrahim Afqaan baa ii soo dhiibay wuxuu leeyahay niyo waa Suuriyadii loo imo waxaan rabnaa maamulkii inaan kugu wareejino bacdamaa gudoomiyihii uu xidhan yahay oo la laayahay tarxiib iyo soo dhaweyn baa la iigu talagalay in la igu soo dhaweeyo ana waxaa iga go'an inaan kalluumaysigayga ku noqdo barnaamijkan aan shaqo kale bal ganacsi galo buuqaana aan iska daayo Kismaayaan imid guddi baa la ii soo saaray qoladii Haaskaanbooni iyo Caanoolaa waxay dhahaan waxaan doonaynaa nimankii haddaadan ururkii Haaskaanbooni ee mu'asaska ka ahayd aadan shaqadiisii qabanaynin inaan nimankan shareecada islaamka nagu kala xukuntaan wixii aan ku heshiino oo dhan way ka baxeen Sheekh Muxtaar Xogaal buu ka yahay doodaasaan galay niman culimo aanu yahay guddi bay ii soo saareen maanta wuu dhintay waxaa mas'uul ka ahaa gudoomiye oo ah gudoomiyihii markaa gobolka u joogay oo ahaa ninkii ahaa Ibrahim Afqaan waxaa ku xigay Cabdiraxmaan Macalin Nuur nin la yoon jiray Ciise something like that afar qof bay ii soo saareen anna qolo kale ay la socotay 5 maalmood 3 maalmood baan fadhinay iyo 2 maalmood oo ka horreysay oo fasaxan kala galay doodanadii dheeraad waxay ku soo dhamaatay waxaan ku war Ilaahay wuxuu leeyahay haddaad shay ku doodaan oo diin sheeganaysa kitaabka Ilaahay uu noqdo kitaabkan Ilaahay ku xukunta jawaabta la isiiyay waxay noqotay doodaa 3 maalmood iyo 2 dhexda gashay 5 maalmood socotay haddii kitaabka Ilaahay aan ku xukuntano waxaan ka hor imanaynaa manhajka xarakada qaacida shacbiyana waan luminaynaa بالله عليكم أي دين يا برنامج هلا قاضي حدان قاضنا واحد كهلا يسون وان كتابك إلهي كحب تنو وحان كهر مننا منهجك معني والدستور كأورك أوليه وحان الله مننا تاجرات ذلك وحيان الشيء يا نك أنت ديك شيء جاي ما أنت هالشيء تاسان كقلتين وح إلهي وجبار نينكي إبراهيم أفغان وشيخ مطار محل ودري ما كلمة ده واحد بدل به واحد يسكو قبتين سو نفس الكلمة ماين إبراهيم أفغان أريجي ويجري ديجي سلقوا بالنستوى ديجي وكوبا النستوى السجل اللي ودي لفت الكيس صوته مصالح يلا رواين الحقيقية واحد دين لنا مجد مصالح بالغها ما أنت نيك علبة اللي تشوفه وعلي يا عمر يا حسن يا فرح وران كريم حل علبة ما أنت الدين كله تشوفه مجد وحي كله تشوفه عبسي يدد مصالح اقتصادية لأن ما كان ضرائب بيقطان حوالي بيقاطان وحرب بنيستان انت اسال يقول تشوفه laba xaalan la gudbo ama walimaha noqoto aniga dagaalka aan shabaab la galay saldan uma soo gelin siyaasad uma soo gelin inaan madaxweyne ilaa fadlan noqdon awood si yeesho uma gelin wallahi ilaahay darti waxaan la soo galay inaan la dagaalamo oo aan ka jawaabo haddii aan kitaabka ilaahay ku kala baxano waxaan luminaynaa qaacida shacbiya manhajka xarakadana waan ka hor imanayna كم ده سنتين يا ما أنت مسؤوليتي ولا تشوفين شركة مهمة دولية هاي وانون ورنما كان الدين كما هالليان كوا أنا قانون عامها أو دوابك كان أنا دورة أساسية سينما ومات ومليونير قاركونا يكون انتين حقيقة كانت وأنا كشغالي أنواع مصالحي حوالي لبرتها ما راح يجعل لا يقف بالدين ويقول والله فيش كان بوني ما المقاومة waxaan ugu nimid aagan haweenka loogu tago iyo xashiish kale iyo qori walaa maxay
أميركا قبلها هوينك حقوق دقيقة ولا الماشي أي دين ورواقنا أنه وحن كتلين أنه وحن ما أننا نقولي دين بان كهالليني أخلاق بان كهالليني قيام بان بسيني ده دين لبانو هاي runtii waxaa si fiican wax fiican sheegay raggii hadlay oo dhan gooni ahaan haddee amiirkaygii hore runtii runtii wax fiican raalli ahaada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaasa laga daba tegayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qoree wax kelimo iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin ciddii og baa og ciddaan ogeynna ma ogo waxaan leeyahay nebiga wuxuu yidhi ayu yowmin haada khudbadiisii xajatul wadaac waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkooda waa iska raad arooriyaade hal la socdo wuxuu markuu nebiga yidhi maanta waa ayaantee wuu ogaa nebiga laakiin iyaguu xasuusinayay waxaan leeyahay shalay jumcay ahayd ma shakiyaa ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano